السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن وناكسن إن الهانتين بقى ومركل مقال كلو وأن دون إن أنا إذا شرح وحاول هاي استشيونة بورتينا ويا لا استشيونة بورتينا ويا لا مجال روما مثل مرهان تاسنا ومثل كلابات يقوي مجال روما مركل لجنة يبو استشيونة تيرميني استشيونة بورتينا وحي ماذا بدي basaska ka yimaada gobolada isla mar ahaantaasna ay ka baxaan dadka doonaya inay aadaan gobolada dalka Talyaaniga intiisa kale waliba sidaas oo kale waxa soo mara isla markaana ka baxa qaar kamid ah tareenada waaweyn ee u kala goosha dalka qaybihiisa kala duwan. Stazione Tiburtina waa station aad u weyn isla mar ahaantaasna dayactir u sameeyay mar dhexdaasa. haddaba maanta waxaan joognaa oo aan soo booqanay isla mar ahaantaasna inoo soo gashay in aan markaasi imaano si aan idinku sharxno isla markaasna idinku wadaagno howlaha uu qabto. haddeertaan waxaan ku wajahanahay in aan aadno qaybta ay ka baxaan basaska isla mar ahaantaasna aan idin sharxno qaybaha ay u kala qaybsan yihiin gobolada ay kala aadayaan iyo dadka sida ay markaasi u shaqaysan yihiin basaska ay qaadan lahaayeen si aadan markaa uga lumin. dabcan waxa aan doonaynaa in ay ka faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed ee danaynaya in ay yimaadaan magaalada Roma isla markaasna u yimaadaan basaska ama tareenada. dabcan haddaad tahay qof ka mid ah magaalada dadka degan magaalada Roma waxaan dareemaynaa amaba aan ognahay inaad taqaan oo aad timaaday hase ahaatee muuqaalkan ama kilibkan yar waxaan ugu danaynaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee imaanaya magaalada Roma isla mar ahaantaasna ku imaanaya baska kaasoo marka ay kaga soo dagayaan Stazione Tiburtina. su'aasha kale oo meesha taal waxay tahay haddii aad ku soo degto Stazione Tiburtina oo aad doonayso inaad soo aado Stazione Termini xagee ka bilaabaysaa? idrooga dhulka hoostiisa mara xagee ka qaadanaysaa? wajahadee u qaadanaysaa ama directionka aad qaadanayso waa keen? haddaba intaas oo su'aal oo aad isweydiinayso amaba aad jeclaanayd in lagaaga jawaabo annagaa kaa sharafinayna. laakiin marka hore waxaan tegaynaa qaybta ay ka baxaan basaska kadibna waxaan ku soo noqonaynaa qaybta hoose annagoo markaa idinla wadaagaynaa sidii markaasi aan idinkugu sharxi lahayn sida aad ku imaan lahayd Stazione Termini si aadan uga habaabin ina keen oo ina raac. insha allahu tacaala 2 daqiiqo kadib waan joognaa qaybta ay ka baxaan basaska hadduu eebeedmo waad ku mahadsan tahay. waa tahay sidaan hore idinkugu sheegnaba haddeertaan waxaan imaanay qaybta ay ka baxaan basaska. hadda waxaan taagannahay wajahada hore qaybta lagu iibsho markaa tigidhada. qaybta dambe ee idin muuqata waxaa ka baxa basaska ka yimaada isla markaasna u goosha gobolada dalka intiisa kale koonfur waqooyi ama bartamaha dalka. dabcan waad arkaysaan inay joogaan dad tiro badan. haddii aan u soo leexano qaybta dambe waxay naga xiga qaybta weyn ee markaa uu ku yaalo Stazione Tiburtina. qaybtaasna waxaa ka baxa tareenada markaa u kala goosha dalka intiisa kale hadduu yahay midka ka imaanaya Stazione Termini hadduu yahay kuwa ka imaanaya gobolada intiisa kale way soo marayaan. marka waxaan u gudbaynaa oo aan dul tagi doonaa halka ay ka baxaan basaska annagoo markaasi mid u fiirin doona hadduu Ilaahay yiraahdo. wali waxaan doonaynaa inaad nala socoto. waxaan ku guda jirnaa sharxaadii aan rabnay inaan idinka siino howlaha uu qabto Stazione Tiburtina. waad mahadsantahay. waad aragtaan dadka waxay hadda feel ugu jiraan baskii ay qaadan lahaayeen. qof walba wuxuu wataa tigidhkiisa waxaa ugu qoran lambarka baska uu raacayo qoyska uu ka fariisanayo lambarka baska meesha uu ka baxayo. bas walba waxa uu leeyahay lambar uu ka baxo tigidhkeena kugu qoran tahay Stalo waxay noqonaysaa afka Soomaaliga mooro ama mataqaanaa xeyndaar loo qoondeeyo marka baska ka baxaya. basaska waa idin muuqdaan waa aragtaa. marka hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala halkaasaan ku soo koobaynaa. waxaan rabaa marka inaan u gudubno qaybta kale oo aan hoos u daadegno sidii markaa aan ku imaan lahayn Stazione Termini. waad mahadsantihiin nala soco insha allahu tacaala. mar dhow sidaad aragtaan weli waxaan dhex taaganahay Stazione Tiburtina. waad aragtaan waa station aad u qurux badan isla mar ahaantaasna dib u habeyn casri ah lagu sameeyay. dadkii hore u yaqaanay u imaan jiray ama u yimaaday waxaa laga yaabaa inay dareemayaan
in lagu sameeyay dib casriyeyn aad u xooggan. marka hadda duu ilaa yiraahdo waxaan u dageynaa qaybta hoose waxaan rabnaa inaan qaadano midrooga mara dhulka hoostiisa qaasatan midro B waxaan ku wajahanahay dhanka station Termini sababtoo ay tahay waxaan rabnaa inaan tagno station Termini sababtoo maxay tahay waxaa laga yaabaa inaad tahay qof Soomaaliyeed ka yimid gobolada isla mar ahaantaasna doonaya inuu aado safaaradda Soomaalida halka ay ku taalo amaba aad tahay qof lagu belamiyay barkulanta Soomaalida loo yaqaano Somali Stag amaba aad doonaysid inaad ka soo dukaamaysato qaar ka mid ah dukaamada Soomaalida ee ku yaal station Termini iyo station Tiburtina masaafo intee leeg ayay isu jiraan karaal noqdo mararka qaar haddii afka Soomaaliga ama erayada qaar aad fahmaysaa waa dareemi kartaan hawsha aan hayno culayska ay leedahay iyo dabcan cimilada oo markaasi aad u xun dabaylaha dhacaya marka sidaas daraadeed hadda marka waxaan joognaa station Tiburtina waxaa noo dhaxaysa masaafo sidaas aan u fogeyn asaacadii haddii aan raano waxaan qaadanaynaa bas maadaama magaaladu ay saxmad badan tahay xiriiriga gawaaridan aad u badan yahay waxaan door bidnay inaan qaadano markaa Metro B-ga baska waa lagu tagi karaa laakiin waqti badan ayuu naga luminayaa marka aad joogto station Tiburtina station Termini waxaa inaga xigta 3 fermaatada afaraad waa station Termini hadda marka aan hoos u daadegno oo aan qaadano Metro B-ga directionkiisa ama midka u socda dhanka direzione Laurentina fermaatada ama maxadada ama joogsiga koowaad ee nagu soo wajahan waxaa la yiraahdaa Bologna waxaa ku xigta Policlinico waxaa ku xigta Castel Vittorio kadib ay noqonaysaa mid aan doonaynay oo ah station Termini waa station aad muhiim u ah isla mar ahaantaasna ku yaala faras magaalaha hadeertaan waxaan u sii dhaadhaceynaa waad aragtaan qaybta kale ee idin muuqata waa qaybta ay maraan maxaan iraahdaa tareenada ka yimaada gobolada dalka intiisa kale hadeertaan hoosaan u daadegina waxaan idin tusayaa halka lagu iibiyo tigidhada kulli aniga tigidh waan haystaa saaxaate waxaa laga yaabaa inaad gobol ka timaaday haddii aad doonayso inaad raacdo maxaan ku raahdaa midrooga ama baska waxaa waajib ah inaad haysato tigidh marka mar walba waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad tigidhkiina aad iibsataan ama aad gadataan waa mahadsantiin nala socda oo ay naga caajisin baaragtaa hoos ayaa u soo dadegnay halkani waa halkii laga raaciyay midrooga qaybtaas kale waa qaybta tigidhada hadeertaan waxaan u malaynayaa inuu soo socdo waaba taagan yahay laakiin waxay ahaataba annaga waxaa sugaynaa kan kale ee imaanaya waad u jeedaan dadka gabigood waxay isticmaalayaan tigidh la'aan lama gudbi karo marka waxaan mar walba idinku dhiirigelinaynaa tigidh la'aan inaadnan soconin haddii kale ganax ayaa idinku dhacaya midrooga aan sugayno waxaa ka dhiman 8 daqiiqo waxaan malaynayaa xoogaa cilad xagga farsamada inay jirto caadiyan waxaa la sugaa 5 daqiiqo ay ka badato waxaad moodaa inay ciladi jirto waa ka faa'iidaysanaynaa weli waxaad u jeedaan hadda directionka hadda annaga aan taagana waxaa la yidhahdaa Laurentina marka aan rabno inaan aado station Termini mar walba xusuusta waa inaan ku haynaa inaan qaadano midka u socda station Laurentina qaybta kale ayadana waxaa ka mara midka u socda station Rabibia waa mid kale asagana dhanka kale oo ka imaanaya wuxuu ka yimaada Laurentina wuxuu u socdaa station Rabibia maraan tagi doonaa waxa ay tahay faa'iido inoo leedahay midrooga haddaan sugayno qaabta soo ka imaanaya insha Allah tacaala marka dulqaad aan muujino waa wada sugayna kadibna waa wada raacayna ilaa ma aan ka tagno halka annaga aan doonayno inaan imaano oo ah station Termini kadibna waxaan u gudbaynaa barkulanta Soomaalida ama Somali Stag sugitaan dheer kadib waa uu yimaaday midrooga aan sugayno sida idin muuqata waxaa adag inaan dugno laakiin mar alaal markaan ka degno oo idin soo gudbin doonaa maasintii nala socdo sidaad aragtaan
hadda ayaan ka soo degnay dadku tirada ay ka badan yihiin waxaan ku sii soconaa qaybtii aan ka bixi lahayn dadku aad ay u tiro badan yihiin dhibaataduna way iska badan tahay cabsi badan ay jirta oo ah dadka qaar marka ay arkaan qof xoogaa ka kala duwan amaba ay u arkaan inuu yahay ajnabi waxay iska dhaadhicinayaan inuu qofkaas qof raba inuu wax ka xado dadkoo dhan saas uma wada xuma laakiin dadka qaar ayaa aaminsan marka waa isku dayna ilaa xad inaan iska ilaalino wax walba oo dadka shaki gelin kara isla ahaantaasna keeni kara in markaa qofka ama dadka ay weli waxaan ku soconaa wadadii aan kaga bixi lahayn istaasyonaha hadda waxaan ku jirnaa qayb hoosaan ku jirnaa waxaan u baxaynaa qaybta dibadda markaan u baxnana waxaan aadaynaa qaybta aan rabno inaan kaga sii gudubno barkulanka soomaalida ee loo yaqaano Somali Shack weli waxaan ku soconaa gebiga halkaan laga degnay Midrooga waxaan idin xusuusinayaa farqiga u dhexeeya Midroo iyo Treen. Midroo waxaa la yidhaahdaa gaadiidka dhulka hoostiisa mara, Treenna waxaa la yidhaahdaa midka caadiga ah ee aan wada naqaano intoodaba filmaanta waa lagu wada arkaa laakiin magaca guud annagu wuxuu inoo yahay Midroo ayuu inoo yahay ama Treen saaka waa inay noo kala ahaadaan weli waa socdaa istaasyonaha aad ayuu u weyn yahay laga badan ayuu leeyahay hadda waxaa naga sii hooseysa jaranjaradaas ay u jeedaan waxayna geynaysaa qaybta hoose oo markaa uu maro Midroo kale oo la yidhaahdo Midroo A isagana maraan qaadan doonaa Midroogaasi wuxuu ina geynayaa amaba uu maraa meel u dhow safaaradda halka hadda ay ku shaqeyso safaaradda Soomaalida laakiin ah konsuliyadda marka ayadana waa tegi doonaa hadda waxaan qaadanaynaa mid ka mid ah jaranjarooyinka socda ama Scala Mobile wax dadaado dad baan inaga horeeya walow dadku marka qaar aysan jeclayn sida Soomaalida qaar bay yihiin inaysan jeclayn in laga duubo wax markaa kilib ah saacadee ma muujinayno waxa iyaga dareen gelin kara karaale noqda weli waa soconaa dulqaad sameeya qaybtan hadda aan marayno waa qaybta hoos weli dhankayga bidixda waa idin tusi doonaa halka idinkaga muuqdo baaskiilkaas waxaa ku yaala qaybta markaa laga iibsado maxaan ku rahdaa tikidhada waa aragtaan dadaa ka iibsanaya annagu waxaan u bixi rabnaa dibadda waxaan qaadanaynaa jaran kale oo ah jaranjarooyinka socda kadibna waxaa markaasi tegaynaa qaybta markaa kore weli dibadda umaanan bixin waad aragtaan kilibka waxaad moodaa inuu aad u dheer yahay oo daqiiqado badan uu qaadan doono hadda wuxuu marayaa 13 daqiiqo marka saan filaa ilaa 20 daqiiqo uu gaari doonaa marka uu idin soo gaaro ha ka caajisina waxaa kaloo idin xusuusinayaa inta aanan gaarin gabagabadan waa idin xusuusin lahaa mar allaala markuu ku soo gaaro like-ta share-ka iyo subscribe-ka in aadan inaga bakhaylin dabcan haddii aad reer Roma tahay taqaarina istaasyoona terminalku ku yaal ama Tiburtina waxaan filayaa inaadan danaynin laakiin waxaan annagu markaa diiradda saaraynaa dadka aanan aqoonin ee raba inay yimaadaan Roma si aysan ugu lumin waxaan marag ka nahay in badan oo annaga naga mid ah in la soo weydiiyo warbixin ku saabsan qofka doonaya inuu yimaado Roma Termini amaba Roma qaabku ku imaan lahaa basaska tareenada midrooyada halka ay ka baxaan tramka marka hadda waxaad aragtaan waxaa idin muuqda waa dukaamo qaybtan waxaa ku yaala weli waa qaybta hoose waxaa ku yaala dukaamo badan ku yaala waa istaasyoonu wuxuu leeyahay qayb laga dukaamaysto qayb wax laga cuno marka bartamaha hadda taagan haddaan qaybtan ka baxno waad arkaysaan weli waxaa meesha ka muuqda geedkii nataalaha lagu tiro haddaan dhinacan ka baxno waxayna keenaysaa waddada la yidhaahdo Via Giulietta haddii qaybtan aan ka baxno waxayna keenaysaa Via Marsala annaga taasaa marka danaynaynaa Via Marsala waxayna keenaysaa halka ay ku yaalaan dukaamada Soomaalida
waa barkulanta Soomaalida isla ahaantaana Soomaalida dhexdeeda waxaa looga yaqaanaa Somali Stag erayga Somali Stag waxaad moodaa inuu Soomaalida dhexdeeda caan ku yahay isla ahaantaana loogu yeero meel walba oo ay Soomaalidu isku ugu timaado oo dunida dacaladeeda waxyar kadib dibadaan u baxaynaa waxaa idinku qabanayaa astaanta muujinaysa amaba qoraalka weyn ee muujinaya station terminal waa iga kaftan waxa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaan inaad joogto terminal waxa cadeyn u ah marka hadda ila soco waa arkaysaa mar labaad markaan baxno waxyar kadib waa baxaynaa mar labaad hadda iskaaladii aan ku wajahanahay aan fuuleynaa mar labaad marka aan fuulno iskaalada walow hadda yani gudur aan gareynaa ma mid soo noqonayo haddana waa isku daynaa inaan wax badan idin soo gelino kaliya badanna waa inoo soo socdaa insha Allah taala waxyar kadib marka waa baxaynaa kadibna waxaan u sii gudbaynaa Somali Stag waa isku macsalaameynaa mar walbaana marka waxaana laga rabaa inaan ku dadaalno wadajirkeena isla ahaantaana xoog aan saarno sidii aan wax isugu qaban lahayn waa u jeedin waa soo baxay banaankaan taagnahay hadda waxyar kadib waxaan ku qabanayaa halka ay ku qoran tahay station terminal kadibna waxaan kaga sii gudbaynaa halkii aan u soconay oo ahayd Somali Stag okay dib aan u soo noqonayaa dabcan la aragtaa meesha hadda waxaa nooga muuqda station terminal kadib waa kaasa wadada hadda aan joogno waa via Marsala tooskaasaan u baxaynaa viyadan aan qaadanayno magaceeda hadda weli ma xasuusto waxaa la yiraahdaa via Marghera kadibna waxaan qaadan doonaa via Magenta waxaan u maleynayaa klibkayga hore inaad ku maqasheen magaca wadadaas marka hadda taan intaan sii socono wadada waa idin tusi doonaa hadda via Marghera hadda via Marsala ka gudbaynaa oo waxaan u gudbaynaa via Marghera gaariga inuu aan ka baqay inuu xogaa ugu via Marghera ayaan hadda qaadanaynaa aan ku soconaa marka via Marghera kadib waxaan tagaynaa via Magenta marka via Magenta waa ka gudbaynaa ayada waxaan aadaynaa viyadii kale oo via Milat viyadii Mille inaan markaasi tagno marka waa meeshii barkulanteena marka halkan via Magenta waxa ku yaala dukaamo badan ay ku yaala Soomaalida viyadii Millena waxa ku yaala xarunta ama mid ka mid ah xarumaha ururka samafalka ee la yiraahdo Soomaaliya toos oo aan ma klibkan kii ka horeeyay aan idinku soo gudbiyay marka mar labaad waa idin xusuusinayaa inaadan ka baqaylin like-ta share-ta iyo subscribe-ka waayo haddii aan shares badan samayno waxaa suuragal ah in walaalo badan oo baahida qaba in uu gaaro marka waa ku mahadsantihiin hadda waxaan soo gaarnay via Magenta waa iska daminaynaa kadib aan isku soo noqonaynaa waa mahadsantihiin waa tahay hadda waxaan imaanay via Mille oo ah halkii aan ku balansanayn inaan isugu imaano qaybtaas hadda idin muuqata ama qoraalka halkaas idin kaga muuqda waa mid ka mid ah xarunta ururka Soomaaliya toos gudaha u gelimayno halkaan ayaan ka joogsanaynaa hase ahaatee aan soo gaarnay guntii gabagabadii kilabkii maanta aan ugu talagalnay inaan idinku sharaxno qaybaha ugu muhiimsan qayb ka mid ah Stazione Tiburtina ilaa aan ka imaano Stazione Termini hadda waxaan joognaa meel u dhow Stazione Termini inta aan ku kulmi doono kilib midkaan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo isku soo noqod dambe waxay naga xasuusinaa inaadan naga ilaawin like-ta share-ka iyo subscribe-ka waxaana muhiim ah inaan xoog saarno sidii aan gacmaha isku qabsan lahayn waad mahadsantihiin nabadgelyo kulantay